inay ashaaciradu ay ku tuhmayaan dadkii salafka ahaa tegay inay mujassimo yihiin oo weliba muslimiinta intooda badan waxa la asawaadu lacdam dadka badankood ay mujassimo yihiin oo la iska daayay markii aan xal loo helin si loo fahamsiiyo waxa ay xaqiiqadu tahay xaqiiqadana ay ka wadaan waxa ay nimanka mutakallimiinta ah cilmu kalaamka yaqaan ee Greek dhaxalkoodii soo qaaday waxay aaminsan yihiin bay waxa arkaan inuu yahay wixii saxda ahaa caqiidada ashaaciradu ay aaminsan yihiin waa midda aan soo sheegnay markii ilaahay laga hadlayo ilaahay inuusan meel lagu sheegi karin ma dhaqaaqo mana socdo mana istaagna meel lama jiro kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro yamiin maartay gadaal ma jiro horay ma jiro meel lama joogo caalam kama baxsana kuma dhex jiro lama xidhiidho maartay kama baxsana labana xidhiidho wax noocaas oo kale ah dadka tilmaamaha ilaahay ogolaaday ninka yiraahdo ilaahay kor buu jiraa subhanahu wa ta'ala waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay mujassim ilaahay jir u yeelay oo makhluuqaadka ku shabahay bay ka aaminsan yihiin waa ashaaciradu say badan yihiin inkastoo abul hasan al-ash'ari ninka loo ay u nasab sheegtaan arinta uu ka baxay barina ka noqday kitaabana ka qoray laakiin mas'alada ay wataan waxa weeye marxaladii hore ee mu'tazilada uu ku jiray wuxuu aaminsanaa ee isagu uu ku socday bay wali haystaan iyagu culimadu waxay isku raacsan yihiin inay calaamadaha lagu garto Jahm bin Safwan iyo kuwa raacsan ay yihiin in ahlu sunnaha ay u yaqaanaan mushabbiha iyo mujassima u yaqaanaan waxay u yaqaanaan ahlu sunna wal jamaa markaan leenahay ashaaciradu kuma jirto ahlu sunna wal jamaa ashaaciradu gooni bay ka yihiin waxbay kaga waafaqaan oo iska waafaqsan yihiin iyaga ahlu sunnuhu wax badanna way isu khilaafsan yihiin iyagu habay isu aamineen inay ahlu sunna wal jamaa yihiin laakiin markii laga hadlay xaqiiqada ahlu sunnaha ashaacirada dambe waliba gaar ahaan intooda badan ee u dambeysay way khilaafsan yihiin manhajka ahlu sunnaha wal jamaa markii la tilmaamo fi baab al asmaa wa sifaat way khilaafsan yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmaciin aad baan ku salaamay sheekh axmed barakallahu fiik waad mahadsantahay su'aasha aad weydiisay ee ku tacalluqda ninka la yiraahdo Abdul Fattah Mahmoud Guuleed ee suufiga ah hadda ka hor aanu doodnay meelaha wuxuu la wareegaa dhaleecaynayo culimadii islaamka ee waaweyneed oo uu ka mid yahay شيخ الإسلام تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي نقاسو عالمه اللي يقانو معروفة إلهي علم سيه سبحانه وتعالى أي يسكد يا إنه دلعيو مالهنا وحكاش الشيء لكن كوي اللي تشوقي حلقي شيخ وتشوقي يكوي كدن بيي علم قبضنا وحكي قاد وايي وحنا يلي وايي علم جيسنا كربو سعدا عد جيسنا كربو افتيميا marka wax aan meel laba gaarin inuu kullu goosan yahay oo xagasha ah waxaan leeyahay waa sidii ninkii shaacirka uu yiri kana tixin sakhratan yawman li wahinaha falam yadirha wa awha qarnahu alwa'id nin de wuxuusan gaari karin daba socdo oo ku daba goosan buu ka hadlay marka wuxuu la mid yahay baciid ama goodir sakhra salax weyn madaxa ku maartay gees ku xoqaya oo la dhacaya si uu daciifiyo ama uu wax u gaarsiiyo marka wax ma yeelayo isaga wax yeelaya baciidkaasi marka waxaan leeyahay ninka uu xaganaya waa nin jabal waa buur isaga ma lugu aya waxa uu meelaha la wareegaa ibn taymiya mujassim buu ahaa iyo mushabbih marka alfaadan mushabbih la yiraahdo ama tashbiiha ama tajsiimka la yiraahdo ama hashwiya waxa la yiraahdo waa erayo ay bilaabeen oo soo unkeen dadkii mubtadi'ada ahaa bidcada ahaa waxayna u adeegsadeen la dagaalanka ahlu sunnaha iyo salafiyada manhajka salafiga ah ee asxaabtu ay ku socdeen iyo taabiciintii iyo aymadii hore manhajkooda si loo dhaleeceeyo ay waxay adeegsadeen alfaadan tajsiimka iyo tashbiiha iyo hashwiya iyo wax lamida waxay u jeedaan waxa weeye tajsiim waxa laga wadaa waa jidayn ama oogo ama jid wax la yiraahdo waxay markaa uga dan leeyihiin nimanka mubtadi'ada ah ee arinta bilaabay waxa hawshan qaybaha ugu horeeyay kamid ah ama ugu horeeyayba
nin la yidhaahdo Jahm bin Safwan waa ninkii ugu horreeyey ee inkiray ilaahay inuu kor jiro subxaanahu wa tacaala. ninkaasaa marka wuxuu sheegtay in ilaahay meel kastaba uu ku jiro meel kasta uu joogo. markaasaa wuxuu nashriyey isagii atbaacdiisu in alla ninkii yidhaahda ilaahay kor buu jiraa sida uu sheegtay ninkaasi waa mujassim oo ilaahay buu waxa jir kale ku shabahayaa. jirka waxa leh waa makhluuqaadka jir leh. marka sidaa ayuu ku sheegay. xashwiya waxay u isticmaalaan dadka muxadisiinta ay u adeegsadaan oo waxay u wadaan xashwigu waa waxa ziyaadada ah meesha lagu cufay ee wax weyn oo macna aan lahayn oo wax faa'iido meesha la joogo una jirin. mutakallimiinta waxay soo aaminsan yihiin inay iyagu ay yihiin nimankii cawaaqirada ahaa ama nimankii caqliga badnaa iyagu abwaanada ahaa ama madaxa maartay cilmigu caqli uga buuxay. muxadisiinta xadiidka wariya waxay u arkaan dad wax magarad ah oo dadka iskaga dhex jiro oo lagu daray oo wax qiimo oo weyn aan soo kordhinaynin sida ay ka aaminsan yihiin. waxaad ogsoon tihiin cilmiga dadka la soo gaarsiiyey waa asalkiisu waa laba shay waa qur'aanka iyo sunnada. qur'aanka oo ijmaac lagu yahay mutawaatira oo la kala dhaxlay iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam oo culimmadu u istaagtay qarniba qarni ka dambeeyey uu soo gaarsiiyey oo ay aad ugu dagaalameen si loo difaaco sunnada nabiga oon been looga sheegin. dadkaa sunnada nabiga soo xafiday ee difaacahaya ayay nimankan cilmu kalaamka yaqaana ee Griigii iyo wixii laga soo qaaday cabbay yaa waxay u aaminsan yihiin in dadka cilmiga xadiidka yaqaanay ay yihiin dad aan waxba garanaynin oo siyaado badan aan lahayn oo jiritaankoodu iyo jiritaan la'aankoodu uu isku mid yahay. sidaa ayay ka aaminsan yihiin. marka tajsiimka ninkani uu ku sheegayo sheekhu islaam ibnu taymiya waa uu ku been abuuranayaa. sheekhu ilaahay cidna muna ku shabihin. ninkii ilaahay cid kale ku shabaha gaal weeye. ilaahay cidna laguma shabihi karo subxaanahu wa tacaala. laakiin culimmadu waxay isku raacsan yihiin inay calaamadaha lagu garto Jahm bin Safwan iyo kuwa raacsan ay yihiin in ahlu sunnaha ay u yaqaanaan mushabbiha iyo mujassima u yaqaanaan. Jahm bin Safwan iyo ragga la midkiihi waxay u yaqaanaan ahlu sunna wal jamaaca. markaan leenahay ashaaciradu kuma jirto. ahlu sunna wal jamaaca ashaaciradu gooni bay ka yihiin waxbay kaga waafaqaan oo iska waafaqsan yihiin iyaga ahlu sunnuhu wax badanna way isu khilaafsan yihiin. iyagu habay isu aamineen inay ahlu sunna wal jamaaca yihiin laakiin markii laga hadlay xaqiiqada ahlu sunnaha ashaacirada dambe waliba gaar ahaan intooda badan ee u dambeysay way khilaafsan yihiin manhajka ahlu sunnaha wal jamaaca markii la tilmaamo fi baab al asmaa'i was sifaat way khilaafsan yihiin markii la soo gaaro magacyada ilaahay iyo tilmaamihiisa subxaanahu wa tacaala. marka inay ashaaciradu ay ku tuhmayaan dadkii salafka ahaa tegay inay mujassimo yihiin oo waliba muslimiinta intooda badan waxa la asawaadu lacdam dadka badankood ay mujassimo yihiin oo la iska daayay markii aan xal loo helin si loo fahamsiiyo waxa ay xaqiiqadu tahay. xaqiiqadana ay ka wadaan waxa ay nimanka mutakallimiinta ah cilmu kalaamka yaqaan ee Griiga dhaxalkoodii soo qaaday waxay aaminsan yihiin bay wax u arkaan inuu yahay wixii saxda ahaa. wixii aan aaminsanayn xilligii saxaabada ama ha joogeen ama ha ka dambeeyeen waxay ka aaminsan yihiin inay mujassimo iska yihiin oo sidaa un lagu daayay markii xal kale loo waayay. waayo tajsiimka lagama saari kara bay leeyihiinoo hal looga duwan lama heli karayo oo si kale wax lagu qanciyo lama garan karayo. marka waa la iska daayay. waliba waxay muujinayaan ood ka fahmaysaa in dadka ay ka aaminsan yihiin in islaamnimada muslimiinta intooda badani aynan sax ahayn ee uun ay iska tahay wax shareecada daahirkeeda lagu daayay. markii ilaahayna uu iska daayay oo rasuulkuna waa jid uu u maro oo ku qanciyo ma uusan u helin bay meesha laga fahmaya inay ka wadaan. marka haddaan akhrino hadal uu leeyahay sheekha la yidhaahdo ninka la yidhaahdo abu muxamed cizudiin cabdulcaziiz bin cabdisalaam assulami waa ninka loo yaqaano sultaan culamaa waa ashaacirada ragga ugu waaweyn buu ka mid yahay. wuxuu ka soo hadlay markii hore in ashaaciradu inay qudhoodu aynan isgaalaysiinin isna khilaafsan yihiin. marka wuxuu ka hadlayay inaan la isgaalaysiinin oo takfiirka la iska ilaaliyo oo masaa'il fara badan buu soo sheegay. kadib markaasaa wuxuu soo sheegay dadka yidhi mujassimadu waa gaalo ayuu marka ka hadlayay. mujassimana waxay markaa u jeedaan
dadka tilmaamaha ilaahay ogolaaday ninka yidhaahda ilaahay kor buu jiraa subxaanahu wa tacaala waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay mujassim ilaahay jir u yeelay oo makhluuqaadka ku shabahay bay ka aaminsan yihiin waa ashaaciradu say badan yihiin inkastoo abulxasan alashcari ninka loo ay u nasab sheegtaan arrintaa uu ka baxay berina ka noqday kitaabana ka qoray laakiin mas'alada ay wataan waxa weeye marxaladii hore ee muctasilada uu ku jiray wuxuu aaminsanaa ee isagu uu ku socday bay weli haystaan iyagu tuu ka tegey ee uu ka guuray bay haystaan marka ibn cabdisalaam hadalkiisa haddaan soo qabana markuu hadlayey ilaahay in jiha lagu sheego oo jiha loo aaneeyo kor buu jiraa la yidhaahdo in ayna ka fursanaynin dadka in loo daayo oo xal kale aan loo helaynin ayuu marka tilmaamhayaa markaasaa wuxuu yidhi markuu soo waday walaa siyama wuxuu yidhi qawlu muctaqidi aljihati fa ina ictiqaada mawjuudin macnaha wuxuu yidhi waxaan mashaqaa jirto oo dadka waa la iska dayna faraha laga qaadaya lagama celin karo gaar ahaan kuwa jihada aaminsan buu yidhi xal loo heli kari maayo maxaa yeelay buu fa ina ictiqaada mawjuudin waxaan xal loogu heli karaynin ruux jooga ama ahad jooga oo laysa bimutaxarikin aan dhaqaaqaynin walaa saakinin aan xasiloonayn dhaqaaq ma leh dhaqaaq la'aana ma leh walaa munfasilin can alcaalam caalamka kama socna walaa muttasilin bihi lamana xidhiidho walaa daakhilin fiihi caalamka kuma dhex jiro walaa khaarijin canhu kamana baxsana ruux saas ahad saasoo kalea buu yidhi laa yahtadii ilayhi axadun ruuxna arrintaas garan kari mahayo ku hanuuni mahayo biasli alkhilqati fi alcaadati markii makhluuqa asalkiisa caada ahaan la fiiriyo oo la yidhaahdo ahad jooga oon dhaqaaqaynin dhaqaaq la'aan aan ahayn caalamka aan ka soconayn lana xidhiidhin kuna dhex jirin kana baxsanayn de lama garan karayo wuxuu yidhi walaa yahtadii ilayhi axadun arrintaa ruuxna kuma hanuunayo إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك أرنتا روح قران كرا مجيرو مركي لدول استاغو أدلة إن لغارو أما لحاليلو أي أدركتهي موي عصيرة الفهم أي علوستهي فهم كيدو فلأجل هذه المشقة وحول لباتاً أوجد هذا ماشا كان عيسى روحا هوشا أن لفهم كريم لباتا كدب مويانه أي عفى الله عنها في حق العامة ضدك مركي لو ايغو ضدك بدنكي أرنكوضا إلهي وإسكدهي فروك قاضي ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هكا مركا نوحا نورن لها ودما شيخ موحوليه إلهي با أوذي كرواي ضدك إنو سكل وفهمسي انتو إسكدهي كقوستميع وإسكدهي